wafdi ka socda qaramada midoobay oo hogaaminayo isku duwaha arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Philip Lazarane ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. wafdigan ayaa loo soo dhaadhiciyay xarunta madaxtooyada magaalada Kismaayo halkaasi oo ay kulamo kula qaateen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka ku-meel gaarka ee Jubbaland oo horkacay kusimaha madaxweynaha maamulka ku-meel gaarka ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Lugo Dheere. intaasi kadib wafdigan ka socda qaramada midoobay ayaa kormeer ku tagay xarunta dalxiiska oo ah goob ay dhawaan maamulka ku-meel gaarka ee Jubbaland dib u dejin ugu sameeyeen dadka barakacayaasha ee ku dhaqan degmada Kismaayo. ugu horeyntii waxaa warbaahinta kula hadlay goobta madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka ku-meel gaarka ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Lugo Dheere ahna kusimaha madaxweynaha Jubbaland wuxuuna aad u soo dhaweeyay wafdigan ballaaran ay maanta soo gaaray magaalada Kismaayo. maanta waxa sharaf noo ah in halkaas ugu nimid kadib markaa madaxtooyada Jubbaland kula soo kulno wafdigan ka yimid jamciyadda qurmaha ka dhacaysa xarunteeda oo hogaaminaya nin gargaarka bini'aadanimada madaxda u ah inaan ku soo wareejinno goobaha barakacayaasha inay magaalada nabad tahay inay ballan qaadeen sida ka maqlayseenba in gargaar degdeg ah ee dadka barakacayaasha iyo dadka liita ee la soo gaaraya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay annaguna yaan la shaqeyna diyaar baan u nahay waa soo dhaweynaynaa dowladda gobolka Jubbaland gacan weyn bay ka geysatay dadka dhibaatada haysata haddana waxay diyaar u tahay inay gacan labaad saddexaad afraad ka geysato. dhanka kale waxaa warbaahinta goobta kula hadlay John Ken oo ah madaxa hay'adaha UN OCHA ee New York oo qayb ka ahaa wafdiga soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan waxaana kamid ah sidii gargaar degdeg ah loogu sameyn lahaa dadka barakacayaasha ee ku dhibaataysan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. We want to see what the needs are. This is a good opportunity for us to hear from the people what they are expecting in terms of support. And we have seen very clearly the efforts of the authorities. We've also seen the efforts of international organizations already. We congratulate you on putting the infrastructure, the steps that you have taken. But we also see that much more is needed, and it's needed very quickly. People need food, they need support with shelter, they need medicine, they need the basics so that they can survive here and then rebuild their lives. So we are going to take this message for action very quickly now from here to our headquarters to support action very quickly to help the people here. So I'm very happy to be here. Abdulaziz Haji Mahmoud Garyaqan TV-ga caalamiga ee Kalsan magaalada Kismaayo.